waxaa magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota lagu soo gabagabeeyay tartankii xiisaha lahaa ee Qur'aanka Kariimka oo sanadkii 7aad lagu qabanayo dalka Mareykanka. Tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay ilaa 400 oo arday kuwaasi oo ka kala yimid qaar ka mid ah gobolada dalka Mareykanka. Waxaa si weyn loo sugayay natiijada ardayda waxaana mar qura isbedelay markii lagu dhawaaqay ardayga kaalinta koobaad galay. القرآن الكريم كاملا سيارة ونشترط عليها أن أول من يركبها والديها. إنها صابرين حسن. سيارة من أحدث المعارض في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه أبرار جمال الدين. waxaa xusid mudan in labadan arday la siiyay gaari Toyota Highlander iyo lacag 4,000 gaaraysa. Sidoo kale waxaa loo kaxeynayaa umrah, taasi ayaana ahayd wax arday walba uu rajeynayay. Abraar Jamaaluddin oo kaalinta koobaad galay ayaa farxadda iyo dareenka la wadaagay Nabad TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abrar Jamaluddin. Alhamdulillah, I'm Hafiz al-Quran. I'm from Philadelphia, Pennsylvania. And Alhamdulillah, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala firstly. And I would like to send salutations upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I would like to thank my parents, my family for all their support, my friends, my community members for all their du'as. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them. Alhamdulillah, it's a great feeling. Alhamdulillah, it's a ni'mah from Allah that He has chosen us to hold His book in His hearts. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless Imam Shatibi Quran competition, all the organizers, judges, participants, even those who just came to watch. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them and reward them for their efforts. Sidoo kale waxaa ii suura gashay in aan la kulmo qaar ka mid ah howlwadeenada Imam Shatibi kuwaasi oo ka warbixiyay dhamaadka tartanka. Anigu magacayga Cabdullaahi Saciid Axmed ah waxaanu ka mid ahay dadka soo qaban qaabay tartanka Imam Shatibi oo sanadkiisa 7aad ahaa. Waxa Ilaahay mahadiisa ah in sanadkan si nabad ah oo aad u khayr badan oo farax ay ku jirto inuu noogu soo gabagaboobay taasi oo ah Ilaahay mahadiis run ahaantii caqabad badan ayaanu soo marnay yani marka ay noqoto inaanu tartankan fulino si loo fuliyo tartankan sadaqsoontiin iyadoo lagu jiro waqti yani xagga caafimaadka inaga saaran tahay caqabad aad u weyn waxa Ilaahay noo maaragtay fududeeyay in tartanka si maaragtay nidaamsan uu noogu bilowday una noogu dhamaaday si aad iyo aad u qiimo badan oo maanta yani ay ahayd axad bisha August ay tahay 8. Ilaahay subhanahu wa ta'ala caawa ayuu soo gabagaboobay aad bay ardaydu u farxeen runtii abaalmarino kala duwan ayaa halkan lagu helay haddaan idin sheego abaalmarinada qaar meeshan laga helay maanta aad ay u fara badan tahay caawa waana aad bay ardaydu u faraxsan yihiin ardayga kaalinta koowaad galay quraanka dhan wuxuu qaatay lacag 4,000 iyo gaari Toyota oo gaari raaxa oo barayskiisu yahay ilaa 45,000 ardayga kaalinta plus umro oo ardayga kaalinta koowaad ku guuleystay gaariga iyo 4,000 lacaga iyo wuxuu qaadanayaa iyo umro hadii la yiraahdo ardayga kaalinta labaad galay saas oo kale lacag $9,000 ayaa la siinayaa oo kaasha iyo umro. MashaAllah, this is very nice Quran competition, and I would like to say all of organizer and team of Imam Shatibi Quran competition, congratulations all of you, MashaAllah, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept efforts of all brothers and sisters. Alhamdulillah, Ilaahay baa mahad iska leh. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa walaalihii soo qaban qaabiyay volunteerskii iyo qof walba oo qayb ka ahaa inuu barnaamijkan suuroobo. Alhamdulillah, Ilaahay baa mahadaas iska leh. Waxaan aad ugu faraxsanahay dhammaan caruurta ku soo baxday kaalmaha kala duwan. runtii waan u hambaleynayaa dhamaantood waxaan leeyahay hambalyo si khaas ah waxaan u hambaleynayaa anigu ku hadlaya magaca maamulka masaajidka Abubakar Siddiq Islamic Center dhalinyaradii ku soo baxay quraanka ku guuleystay wiilal iyo gabdhaba iyo mataqaana macallimiintii iyo waalidiintii kuwii guuleystay iyo kuwan guuleysanba waxaan leenahay jazaakumullahu khayr wa barakallahu fiikum wa salaamu alaykum wa rahmatullah. Asmar Abdinuur, Nabad TV, Minnesota.